kulan wacan daawaday waxaad ku soo dhawaataa janaalkeena leewaya filmis oo aad kaga barateen inaad ka daawataan warbixinadii la xiriira aktaryaasha ugu caansan Hindiya iyo kuwooda haatan u halgamaya inay noqdaan aktara magac ku leh Bollywoodka. haddaba haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena ama janaalkeena leewaya filmis fadlan subscribe noo dheh, comment ka baxso, like ta saar, sidoo kalena gambalaalka furo si aad u hesho warbixinada ugu dambeeya ee halkaan aan soo dhigno. warbixintana maanta waxaan ku eegi doonaa tirshida ku guuleystay Miss India iyo Mrs World kuna soo caanbaxday filimka Dandaas ee la daawaday 23 May 2013. waxaana la soo caanbaxday tirshida quruxda adduunka ku guuleystay ee Lara Dad, waana Priyanka Chopra oo Bollywoodka iyo Hollywoodkaba ka dhex muuqata oo dhaxda fanaanka reer Mareykan ee Nick Jonas. Priyanka Chopra ayaa inta aysan noqon jilaa, fanaan iyo maalgeliyayba waxay ku hanweyneed inay noqoto engineer. haddaba warbixintan ku eegi doonaa hadaladii laga diiwaangeliyay tirshadan ee ku aadaneed nolosha halka ay ka gaartay. waxaan rabay inaan noqdo engineerka Hawada, laakiin maanta maxaan ahay? waxaan ahay jilaa, waxaan ahay heesaa, qoraa iyo maalgeliyay. sideen ugu imid inaan noqdo engineer oo aan u noqday intaan oo dhan? waxaan qaatay qayaarkaas waan rabay nafsadeeda. u ogolaaw inay riyadaada ku hogaamiso, baalo u yeel, noqo cid aad rabto inaan ahaato. bilaa cabsi abuur fursadooyin, waana qayb kaloo muhiim u ah cabsi la'aanta. fursadooyinka kuma imaadaan sida ugu dhaqsiyaha badan, wax yar amaba waqti dheer ayaa u dhaxayn kara, laakiin goorma ogaana ma aqoonsan kartaa shaqadeena waa inay nagu aqoonsadaan. Priyanka Chopra ayaa hadalkan dib u milicsiga fursadaha ay heshay iyo sida ay guulaha ku gaartay ka hadashay. waxaan dib u milicsaday dhammaanba waxyaabihii aan sameeyey, waana la cajiibay fursadooyinka aan helay. gabadha ugu qurxoon India, gabadha ugu qurxoon adduunka, filimkay ugu horeeyay ee lagu deeqay, heestii ugu horeysay aan qaaday iyo filimkay ugu horeeyay ee aan soo saaray. ma ahayn qorshe abad, waana nooc ka mid ah waxa ay dunida igu hagtay kuna timid fursadooyin. waxa dhan ee aan sameeyey waa waxa lagu aqoonsaday, waana hubiyay inaan si adag u shaqeeyay iyo inaanan istuujin fursad walba oo aan helay. haddaba ugu dambeyn xidigtan ayaa sheegtay inay waxaan ay ahaayeen rabitaan iyo halgan xagga nolosha ah. dhib ma lahan halka